إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بانكو حمدنا إنك سو قيب قليي صلاة مغرب إن جمع الله سو حاضرنا كدبنا إلهي وحنا إذمي إن فريسنا مساجد كدحديثا ومجلس كان عن دينتي أنا مع نسكو براروجين إنه أن كوض قيب الله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنيثها وحو يري مجلس كوناكسن إلهي اللغو دوانايو إلهي كو دوينايا دينتا إلهي اللغو برانايو آخرة اللسكو براروجنايو إيا مجلس كحن غفلة إيا دين لآنتا إيا معصية إلهي كاد دارينا يبو نبي كبحية مثل عجيبة مثال لذنا إلهي بسوقاتا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا سوقاتا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثاش قرآنك ويكون بدنتها لماذا؟ لأن بني آدم مثلك وحكو فهمها سادر تيد نبينا عليه الصلاة والسلام مجالس ونكسن إله اللغو دوانا دين إله اللغو برانا مساجد أي علماء أي نوغو قبنayaan haday tafsiir tahay haday xadiis tahay haday fiqh tahay haday muhaadaro tahay haday wacdi tahay haday dhiirigelin iyo baraarujin diinad ay tahay midaalka uu nabigu ka bixiyay waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ima waa inaad ka iibsataa ima waa inuu ku siiya ima waa inaad udgoon عرفي وناكسن يؤدق وناكسن أكتساد كلام نقطها مجلس كحن إلهي تبارك وتعالى لقو عاصنايو إعدادك مسلمين تلقو حمنايو إلهي غيرك لقو وينينايو مثالك النبي نكبحي عليه الصلاة والسلام حيري كنافخ الكيري وكان برها الطمع إعدادك كو أفوف بوق ويان كان برها مركو قراعايو وأفوفايو دنبيلا أيا كدولا يدبكاس dembiilahaasi ama dharkay ka gubayaan buu nabigu yiri ima majliska waxaad kala soo kacaysaa raayaha xun oo qarmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yiri marka majliskan saddexda buu nabigu ku mithaalay sallallahu alayhi wasallam sida ninka cadarka iibinaya ima inaad cadarka ka iibsataa ima inuu cadarka ku siiya ima inaad udgoon
carfi wanaagsan adoo jirkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaasay la mid yihiin buu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam ima waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aada wax ka faa'iidaa haddaanaad waxba ka faa'iidaysan oo mowduuca laga hadlaayo aada fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaa kala fadhiistaan ama hooge sidaan ayakaba ugu naxariistaan ugu dembi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabin ee la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dembi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah ayuu nebigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaa buu nebigu ku yidhi maxaa meeshaynii fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aada fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen meel kale oon fadhiisanoo ku sheekaysana ma lihin markaa buu nebigu yihi waa hagaage meeshaa meelaad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weyda jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaan maanta innaga mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqyada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meel aad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiya mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayannaaha linnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim mu'miniinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebigu uhi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka intaa oo meelood oo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino waa zinadii aragga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagatid markaa nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa gadu lbasar indhihiina laaba buu rasuulku yihi sal alla alay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mu'mina mooyaane waqul lilmu'miniina yaguduu min absaari gadu lbasarka waxaa lagu amray waa dadka mu'miniinta aragga ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dhibaa dadka dariiqa marayana gacantiina ha ku dhibina ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku salaamaan salaamta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu cani lmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yihi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhallinyaro oo reer madiine ah fargal dahabuu gacanta ku sidaa deedna markaa buu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yihi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeyay buu rasuulku yidhi usaliya nabigeena sala allahu calayhi wasalam sidaasuu uga siibay yarkii yara fargalka dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirnaa may bal waxay iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weeyaan waa iska caadi waxaan salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii hor sidee doonaan dharka u xidho timahana see doonaan u xirtaa waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahay waa mujtamac oo dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa
وزولني النبي صلى الله عليه وسلم منكر كمركو أركا قعنتي سو نبي ولا تجاي قعنتي سو كجسار الفرق الكي ده نبلكو كتورة مركز النبي يقولي متكين مكرا يا دمبيل نار انتو قادين وقعنتا قشبو هذا الكامركو النبي يقول سكا دقاقي أي صحابة كوي رادان يركي يرى مركو النبي يقول تجي كذب ذهب كاغا قاضي انتفع سكة لو وقف إذا سوق انتفاع ده إيبي عداد وانتصي مركز الصحابي وحيري لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن أنا قادم بدو قادن مايو ما دام النبي محمد قعنتي سوي كجسيبي ودولك كل دفتي ودولك كل توري والله إن أنا قادن يبوي هذا إنه قاته وإيبيو ولعكتي سنة ومارك أنا ملك لو استعماله كحرام ما هنا ومباح وأبنا انتهي إنه قشدون بلغ حرمي لكن قدرين النبي محمد أي قدرين أيام بويري والله إن أنا قادن يبوي وايو نبي محمد بايق توري ما دام النبي محمد قعنتي سدولك وكل توري والله إن دبو قادن ما يبوي قدرك النبي إنك أنا الله نفهم سيه وصلي النبي صلى الله عليه وسلم عجيب تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبي جعيل دودا ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هدي لا إيغو وأفعاشنا وخلاف سنتهي كتابك إلهينا وخلاف سنتهي سنة النبي وخلاف سنتهي مركا جعيلة أن شيغنا وجعيلة بين بينا هذا النبي محمد جعل شهي وهذا دعي لهي نبى نكو جعل يهيب أضعاي قصتكو سابسن نكي جعل كي سأل لوغا شيكين جري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعل كي الليلة أيو واشي درادد مركا سو دربية اسكا سيحان جري مالين مالمها كمدا وحال أركي اساقو جدار دودون كانيا جدار دربي بودون كانيا مركا سأل لقول ورقيسو ما أنت والدادي موحي كوكيس دربي جينا دوكتد مركا سو أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما وحول جدار كان عندهم كنايو السجا ما هو حنو جدون دون كنايه جدار كان قداشي سليلة آيات دجنو جعل كليلا ندون كنايا بو مالين كلا الله أرجسوا أي هيسون دون كنايا ورأي جنا معهم معاكم قصة اللي دي وحول أقل كليلة أي كجرتو كصوب حي يقول كصوب حي محبته أج هدان إلهي جعل لهاي والنبي جيس أن جعل الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين يدتكين يدلكينا هذه صلاة اللي أذموا مقالة إنتول لك بابورة اللي جوجيو أو باب بسسك اللي جوجيو أو مقايدها اللي حلو أو دكانات اللي حلو أي مساجد عمر ملحيد مساجدنا إنما قادين بل وليس سوق لها يولورن لها أنا كنا هنتكلم جمع مسكين كيبون نجبو حيه كسر درر بالورن الصلاة جمع عدم هاكو حرام لو كان حبك صادقا لأطعته هذا جعلك ودبك يا هي وضع لهيد إن المحب لمن يحب مطيع نبنك وجعل هي بوضعاي لأن يراد كبد جعل كوا كبد عياري سكوي كيسيان كوا هي صح جعل كوا فنانين اللي لابس سكوي كيسيان كوا سياسيين سياسة جعل سياسيين تسكوي كيسيان كوا نبي محمد جعل نبي محمد بسكوي كيسين يا مقالة المدينة أيو نبي صوق عليه الصلاة والسلام وهو أركي مدينة يهودي لدقن إذا أنصار أو مالين تعاصر اللي إذا صوميسا وطوانك محرم ويان مرقاب النبي كويري وما يهود مالين كان يصوميس مرقاب صالر ومالين تي إلهي النبي موسى وكبت باديي ومالين تي النبي موسى يريبن إسرائيل إلهي جل وعلا وبدأ أد اللاعيي يا طريق إلهي وقجي حي بدأ لقبت باديي هلاقة عدو قوقي فرعون الله هلاقي ويان نبي موسى صومي عليه السلام أنا كنا وحنو صومينا شكريا ما هنقبل صومينا ودين تيدي النبي جاي بان كضينا مركز النبي وصحابتي سكويري أنك أوجا حق لموسى صوم عاشوراء كل ده بهدان قارنا سجالات كان كضرب الرسول كوير يهودا محو النبي كوكو خلافي عاداتكم خلاف بل وحكو خلافي عباداتك بكو خلافي
mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaan baha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeyshihuuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yihi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyaddii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarn alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayh salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaanay xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasaa dadka reer madiine o dhan waxay isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiina o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli karaa haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aada doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aada khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cuhmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso
waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeed aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doon u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagaluu hayaa u nagu camaynaya cumar baa socdo cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yihi haa waan kuugu hayaa horta abaan cumaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistay uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu ri nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib ha u istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaa buu nebigu yihi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yihi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yihi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yihi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yihi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay
markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi allow inantii Julaybiib waan siinay aro guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi allah waa ninkee markaas Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doondo waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isagaan kamid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isagaan kamid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa Madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysaa ha imisa inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayay waa nin reer baadiya ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nabigu degdegay maadaama nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaa buu nabigu soo daymooday wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaa buu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya idhigama iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tamma albay' qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yiri may igama iibsan markaa buu nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer Madiina dhanba ku soo ururay wala isku dhageysanaya acraabigi wuxuu leeyahay igama iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan ka iibsaday waan ka gatay iyo igama gadan ninkii acraabiga ay war inaad iga iibsatay marxaati ma haysata markaa buu nabigu dadka sidaa u eegay Khuzayma ibn Thabit nin leeyda oo reer Madiina soo boodo yiri ana marxaatiya buu inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maragtaana awrka inuu ka iibsaday ana maraga furaaya markaa buu nabigu sidaa u eegay Khuzayma markaa ninkan kale iibsanayna meesha ma joogine seed marxaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yaa rasuulallah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu ku keenay baan ka rumaynay ma bini aadankan aad baan u sheegi buu ma bayciga adoonkan in dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxa ku rumaystay tirida aad tiri waan ka iibsaday inta baan ku sadaqay buu markaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri maanta laga bilaabo Khuzayma ibn Thabit saxaabiga la yiraahdo maanta laga bilaaba halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii ba ku filan buu rasuulku yiri markiiba nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyay shahaada ayuu siiyay shahaadatu Khuzayma ta'dilu bi shahadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay Khuzayma keligii ba ku filan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam laana saxaabadu waxay garanayaan nabi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yiri
ونبي محمد باسدا يدي بقولك بقول بقولك بقول بعد قال هذا قريش هذا وضع مركز شيء مي كلا حاشا هي وحسر عنو نجا مسجدو بسر بعد نجا وضع ينجا مسجدو markay qof run u sheegay iska dhigtay ay labadoodii ka soo noqdeen baa leeyahay kolka in yar soo noqdeen ali baa yiri oo ma warkeegan rumaysanayo warkii nabigan beeninay buu nabi maxamed baa nagu yiri sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wada ee sirta ka soo qaada maadaama nabi maxamed uu yiri ma warkeegii intaan rumaynay ayaan warkii nabigana been ka soo qaadnaa buu yiri soona ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirta aad naga wadid nabi maxamed baa ku sheegay haddaad sirta halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nabi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timaheygii tadcanaa ayaa warqad intaa le ka soo saartay warqadii bay nabiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuul allah waatan gabadhii sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya xalaqaduu dhegaysanaya waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxa ka waramay marka uu quraysh uga waramaya sirtii nabi maxamed sirtii ciidanka dawladda islaamka sirteedii buu gudbiyey markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam midabkiisa beddelmay rasuulka halkan umar baa joogo markiiba kacoo yiri yaa rasuul allah ninkan munaafiqa nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayay anaa qoorta ka goynayay ugu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu yiri umar u kaadi buu u kaadi degdegina ya xaatib labbayk ya rasuul allah saasuu leeyahay labbayk ya rasuul allah sarakac buu ka yidhi ustaagi sirteenna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal sheeg buu ka yidhi wuxuu yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi ragga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkaygii iyo reerkaygii baa quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is odhanayaan xaatib ininkuu inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam ila ninkani dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi suurati awaa'il suurati almumtahin ya ayuha alladhina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawaddah ila aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku cadeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay cadeeyey iimaankiisii baa ilaahay cadeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal muuminiintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulka inaysan awliyaa ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nabigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay
لكن عمره واحد أوجين يا أهل البدر بوها نكن والرب بدر وصدح بقول صدح يتوبن كينن إيه دجالك بدر قال قريب قشي وياه أهل البدر إنما تقنا درجة دودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر واحد دونتان بالسمية إني قدم بيجيني والله داف واحد دونتان سمية معنوه ما هن ذنوبته كلها عماها نك بدرجة هدو قفنا بالليلي ودم بكدعنا سوء الخاتمة كل من مايه حسن الخاتمة يكون من دون مركب ودم لا أنا مالين تاسا إلى حي أقبلي مالين تتردى مسلمين تأيري إيه قال دونا أي سود دولين يكون الدجال كنت لقلين أي النبي قصار معركة بدر أين يسوق قبطان عير قريش دجالوا ما يجيدين لكن إلهي ما قدر دجال ما شيء كدعوا وحي لي مدن يطبي لي مدن دينتين دفاعية حتى نزل جبريل عليه السلام مالن مالمها كمذا جبريل باسود دقول يري ما تعودون أهل البدر فيكم يا محمد رجع دجال كبدر كالا قيب قلي أكتينا قيمة هاي كليهم بليشك وهالكين محات كو أركتان مرقاس النبي يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تكو وفل بدن إليهم بانو أرقنا برسولكم مرقاس جبريل يري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوكلا أنكون هدان ملائكنا هاي ملائكتي دقال كبدر صودا دعدين نقال قيب قشي وحال الله أركا إليهم كوا ملائكته وفل بدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها ما نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رجع ساقرت قدرك رسولك قدرك نبي محمد بيقرتين مكانة دي سي بيقرتين وصلاني بدأ نبي كلها حجامة توبين بو نبي قوس توبين مالين تشتدن بدي كي نبي قلقب بوحيي عبد الله بن الزبير بن نبي قوي أول مولود في المدينة المنورة وياه زبير بن عوام بعد لي هو يدين وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن نبي قوي دي كي غاد مالا عندك أركن كسو آس حلو دي بي ديجي كبح جرك نبي محمد بالله دي بل الصواص صلى الله عليه وآله وسلم مركاسو dadki intuu iska eego meel cidna kolku wala baxay ayuu soo tartiibiyay tartiibta ma fahmaysan ya uu soo noqday hay Abdullah ibn Zubayr diigaygi halkaad ku soo qarisay bal ii sheeg markaasuu meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican ma ku soo qariyay buu markaasuu halkee markaasuu calooshayday buu waan cabay buu diigaygi ديجي نبي محمد دول كينو وكشبه ووديدي تأصول فريستي وعب مركز سوري ولما شربته ما حد عبتي بوكيدي ويل لك من الناس وويل للناس منك بوكيدي ويل لك من الناس وويل للناس منك يا ابن الزبير عدة دقال كو قادنا وي بعضي عدة دقال كو سو قادنا وي بعضي برسولك بوكيدي بحق لجركيس maxaa galay kula tahay dhiigii nabiga galay jirkiisa nabigana waxay yiraahdaan culimadu nabiyada jirkooda wuxuu ilaahay galiyay 40 nin oo ahlul janna quwadooda ilaahay galiyay ninka ahlul jannahana 100 nin oo rag adduunka u dhigmaa baa leeyahay bal xisaabi waa imsanin 40 nin oo ahlul janna quwadoodii baa la siiyay nabiga nin ahlul janna ana waxa uu la quwadiyaa 100 nin oo rag adduunka Musa alayhi salaam labadii nin ay saqabatay qibtiga iyo maaratan kii reer bani Israa'iil aha xabad feeru sida ugu dhiftay fawakazahu Musa faqada alayhi naftu way ka dhacday kii waa feer kaliya marka abu nabi qul Abdullah ibn Zubayr cidda dagaalaad ku qaadana way baaday cidda dagaal ku soo qaadana way baaday buu kay maanta laga bilaaba
jidhkaagiina naar waa ka xoroobu rasuulku yidhi jidhkaagiina naar uu ka xoroobay khalaas fursad bay heleen iyaku fursaddaa way ka faa'iidaysteen yaa muslim innaguna fursad baan maanta haysanaa fursadeen haysanaa waxaan nahay ummaddii nebi maxamed baan nahay awalkeygii ma nihin bal aakhirkeygii baad moodaa inaan nahay aakhirkeygii kuwii u dambeeyey naxnu asaabiquuna wa naxnu alaakhiruun buu nebigu yidhi annakaa saabiqiina oo jannada ugu horgalayna annakaana ummadaha ugu dambayna buu rasuulku yidhi abuurkana annakaa ugu horaynay abuurka ummadahana annakaa ugu dambaynay oo ummaddii ummadaha ugu dambaysay baan nahay wa naxnu saabiquuna jannadana annakaa ugu horgalayna buu rasuulku yidhi maalinka qiyaamaha sayaأtii calى ummatii zamaan almutamasiku bidiinihi kalqaabidi calى اljamra zaman ayaa iman doona buu nebigu yidhi ummadayda ninka is yidhaahda diinta ku dhaqan oo diinta baro oo diinta ku camal fal oo diinta danee ninka is yidhaahda waxa uu la mid noqon doona nin dhamacayo dhamac dhimbil naara ma lahayn kara dhimbil naara nin ayuu la mid noqon doonaa markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen zamankaas zamanka ninka sunnahaaga qabsan doona uu la mid noqon doono nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihii nebiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay maaragtaana dadkii reer galbeedka aan milman saasaan isku dhex galnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan qaar maxay ku ducaystaan ya ilaahow hee labadii ciyaal viisaan u xereeyey ilaahow iga sii kuwa sii qaad war saasaan isku dhex galnay maanta zamankan maanta sunnihii nebi maxamed sal allahu alay wasalam haddaad tiraahda aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmaynaa mujtamacii kalea kaa qaaliba markaasay saxaabadu yidhahdeen zamankaas ninka diinta qabsadee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yihi konton nin 50 rajulan konton nin ajarkoogaa ilaahay u qoray buu rasuulku ka yidhi nin saxaabiyaa sare kacoo yidhi man konton annaka mise waa konton iyo kaa maya konton ininkaa buu ku yidhi rasuulku konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waayo zamanka iyaku diintoo fresh ay heleen fresh nebigay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo soo degaysay arkayeen qur'aanka kolba aayad lagu soo dejinayey shareecadda u dhammaystirmaysay maalintii nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey iqra baa ugu horaysay aayadihii qur-aanka ugu dambeeyeyna waxay culammadu ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina carafay ku soo degtay carafa muddo yar kadibna nebigu addunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir waa aayadihii ugu dambeeyey nebiga kusoo degay kamid tahay aayaddaasa la yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan inii dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiina ayaan ku dhammaystiray nicmaddu waa qur-aanka nicmaddu waa sunnada nebiga nicmaddu waa islaamnimada nicmaddu waa hidaayadda nicmaddu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaan u haysanaa nicmad ya adduunyo adduunyo nacam adduunyadu waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحو شيغي وأما بنعمة ربك فحدث markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu maalka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadanka la aamusiin doono ka u hadlaya buu aniga shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceed halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo dul dhigo 40 kun oo sanadood
banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum idaa aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa'u alxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalinta gacanteedu ku jira calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abulbashara ibraahim alkhaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abulambiyaa labadoodaaba ka soo qaad buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanayaan buuhi calankaygaas walaalayaal nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo inakuna maxabada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in yar haddii laga cadhaysiiyo qaar diintay caayayaan qaar malaa'igtay caayayaan qaar ilaahay abuuray bay afka ku taagayaan qaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallaahi suma wallah maalin maalmaha ka mida masaajidkii nebigeenna nin munaafiqa intuu asxaabta sidaa u eegay qaswad baa lagu jiray qaswad ayuu yidhi saas u eegay saxaabadii kuwa qur-aan akhrinaya buu arkay yaa macshar alquraa buu ka yidhi war ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan buu ka yidhi intaasuu yidhi bas la soco marka dagaal la galayana maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayana maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadalkaa maqlay lacalahu cumar inuu ahaa markii buu nebiga u sheegay markii ninkii munaafiqii wuxuu yidhi dee maxaad nebiga iigu diri buu ka yidhi waan kaftamaynay uuni waa iska yar baashaalaynayo waana soo daallayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaaye markaa buu nebigu bedelmay qur'aanka ilaahay soo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qul waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maayo baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kelmadood oo jeesjees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taagayna ka warran ka nebi maxamed afka ku taagana ka warran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma carafnaahu liwaa'u alxamdi biyadii banka qiyaama buu nebi maxamed leeyahay calanka mahadda maalinta ana hayo anaan lay hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadan bay u tegayaan noo shafeecad qaad dhibtan anaa iniigu wacan buu leeyahay jannadii dembigii aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordoo kayrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tegayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadeyda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa 3 been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordoo kayrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anuu qof bini aadanaan dilay buu leeyahay ciisa bna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nebi maxamed uu yidhi anaa la iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma ataqaabun yowmaydin tucraduun ina yowma alfasli kana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaءu fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kanat mirsaada lلطaagiina ma'aaba laabihiina fiiha axqaaba laa yaduuquuna fiiha barda walaa sharaaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوين مالك تدبات دوي تالو مالك أسنبي محمد لو تجي وليه هي أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء صلى أقبل يا وأنجا كبريدي صلى أقبل يا وأنجا
كشفاعتي صلى الله عليه وأنيقا حديث كلا نبيين وكيلها نبي كستي إلهي الدنيا دشيدا دعاء الله أقبل إلهي سيي نبي والب دعاء دي سي الدنيا كسو استعمالي أنا قلنا دعاء دي مالك قيامها خلق يودك تكون في عدو نبي رسول بي كصلي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالين كاسو نبي محمد إن حصوصنا يا إن كنا ما تسنه سبان اللوني دقن كي سبان اللوني شريعة سبان اللوني بل نبي قال الله قد إذا دل يرتو حيو أركان إن يتهدي بسعود نمو حيو أركان متأخر رجعي دب السعود دب النقد بو أركان ماي إن هذا هرو سعته أي إن دب السعته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار صدح دلنيرو متعلمين أو دلنيرت جامعة لها دكتا أيا أودي دون وتا أو دتك بدها كشقيستو ناخودا أي كوير هذا ما أنت دون هذا نجا كره بدوين تنور عدل أو محاتهين صياحين دل حيستيال بنا ومثل أركض دونتي كهشيين فلان دونتو بريجا واتي كسرعون جرت بريجا ضبيلها شراع على قوة جري حاجة ضبيش لو يعيب جري هي بربرية يا غانا يا رجبوتية الدنيا لأن مركز صدق حد دليرتي أوداكي بورستين كوير هذا أدر كني وبايلوت كنا وإنجنير كنا ودكتور هذا يقول لكن يرانت هذه محل برتي مركز أنا وصل الله ضباشا برتي فكو قصقص لنا وحي كوير هذين ضيعت نصف عمرك وحسب ما تعليم بقى يرانت هذه واسكا سو عيارتي هذا يقول مركز لا يابا سدا ugu jahzaasan kan waa baylood diyaarado ka xaya kan waa dhakhtar hal kan waa muhandis yabna al-imarat qusur buu dhisa adigu dabaal mashaqa تعليم ba markaas uu yar jarabay markii barigi ay uu ka qarsoomay ee badweyntii ay joogaan ayaa bad way kacday markaa way kacday bad saas uu sabaysay markaas odaygii indha kale yeesho u shiibu iska dhigayo markaa biyihii ku soo jeesto wuxuu yiri doontu gacanteeda kuma jirto hal mar saddexdii dhalinyaradii maxaa bedilmay nin dhalinyaro ah oo noloshii hadda ay u bilaamayso jaamacadii ka soo qalin jabiyay oo badweyntii isagoo maraya la yiri markabku u qarraqmay bal ka waran markaas hal mar kaliya dhalinyaradii wajigii baa bedilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaasuu ku yiri markaan nigu yiri yaraantaydii dabaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimada ha ku badbaadiso adna dhakhtarnimada ku badbaad anoo dabaashaydii baan bilaabayaa buu yidhi waa mithaal yani haddaad u arkaysid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo ku dayashadiisa aan u arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayna haddaad u arkaysid maaha waxa xaqiiqadu maanta ay caddaan doonto maalinta aad adduunyada ka intiqaashid ayaa la garan doonaa keebaa dib u socod ahaa keebaa hore u socod ahaa lidaalika sunnaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku fara adeegaynaa alxamdu lilah ininku dadkiinan masjidka soo camiray dadkii khayrka jeclaa baa tihiin dadkii diinta danaynaya baa tihiin dadkii nebi maxamed jeclaa baa tihiin runtii waxaad u fadhidaan masjidka waa jacaylo ilaahay iyo jacaylo nebiga aad u qabtaan maalin ayuu nebigu arkay asxaabtiisii markuu nebigu weysaystay biyihii jirhkiisa ka daadanayey ayay gacanta hoos dhigteen markaabay isku masaxayeen oo ka barakaysanayeen sala allahu calayhi wasalam markaabuu nebigu yidhi maxaa sidan u samaynaysaan ii sheega nebiga wax jirhkiisa wixii ka baxoo dhan saxaabadu dhulka uma ogolaanayn tintuu iska xiiray way qaybtameen qandhuuftuu tufay gacan nin bay ku dhacday wejiguu marsanayey kaa qandhuufta nebiga haleelay ee wejiga marsaday mid baa dul joogo isagana kasii marsanaya dharkiisa ku masaxanayay
maradii nebi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nebi allow ma axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahay isii waan ku siiyey buu nebigu yihi ii kaadi aqalkii buu nebigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkii buu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad og tahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana ma yaqaana nebi maxamed wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahay waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirhkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtaa gacmaha markaa buu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirhkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabnay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu yihi dhegaysta haddaad ilaahay iyo nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yihi run ku sheekeeya markaad layna aaminana amaanada ilaaliya buu nebigu yihi haddii lagu aamino amaanada ilaali waa inaad noqotaa amaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekey haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yihi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saaad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yihi 4 sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yihi xadiis kale weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa 4 khasladood buu nebigu yihi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalla kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin run sheega wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof amaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii maطcamin xalaal mirte 4taas sifo qofka mu'minku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu waxba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekay haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino amaanada iska ilaaliyo maanta muslimiinta amaanada maxay u arkaan qisa dhacday ma nigu soo daraa so waa nigu dheereeyey nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu yidhi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu account kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta ii xaji buu ka yidhi waa qiso marxaba uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furtay ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noqday salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaaygii buu u yimid wuxuu yidhi war dee maxaad ii dhaafi buu yidhi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaye lacagtaadii waa taa shaqaynaysay waa taa shaqaynaysay war maxaad leedahay lacagtaadii waa taa shaqaynaysay buu war lacagtu ammaanay hayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydii si markaas oray soo dacweyn makhalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakaltu cala allahi wakafaa billahi wakiila miis jaad iyo maxaa isku keenay aayadda qur-aanka xataa jaadlayaashaad ka dul arkaysaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahayna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab maynii sheegaa markaad sheekaynaysaa run ku sheekeeya markaad ammaano laynii dhiibtana ammaanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno
waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argayseen adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciyo dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagaxeen wadano badan oo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaado halkee buu nebi maxamed ku ordi jiray idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabaylo wata maskiidku soo galayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu biالصabri والsalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawuu mardaakum bisadaqa kiinaynaga bukoodana sadaqada ku duwayay buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan daynaan diinta ilaahay qabsanno ku sugnaano zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha almuslim waxaad ku baxsataa marka ilahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloon ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeygaan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeyga ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaar waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka kusoo hoyda martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti qaaday ninka hormaa la marti qaaday dee sida ayaana ka dhigine bal insha allahu tacala ijtimaaca inaan kasoo wada qayb galno oon ilaahay dartii 4 bilood 2 bilood 40 cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixino ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkoo dhanba allah ina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timida ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiilay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiilay leedahay kadalika dacwaduna wasiilay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan imika anu berigi hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'ili dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kalba tuulo degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakhoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dabeedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidalika in sha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waktigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana aye maxaa yeela dembigeenna allah ha dhaaf dembiga waalidiinteenna allah ha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mawtaadkeenna allah ha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenna ayaa mar walba noo soo duceey yidhaahda ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiye lahayn gacanta midga allah ka siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbada allah ha ka qaado dad baa shaqo doona shaqo xalaal allah ha siiyo dhalinyar badanoo guurdoonaa jirta guur xalaal allah ha siiyo dhallinyaradeenna gabdho iyo wiilal ba allah inoo asturo dalalka muslimiintana meelo joogaan muwaafiqiin midnimana allah ha siiyo dalkeennan aan joognana amnigay allah inoo adkeeyo aamiin dhahada
amniga allah inoo adkeeyo amniga allah inoo adkeeyo